بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أيام هله مركب كواد مركب لباد وحان ربا شركة جرايد المنطقة من أيه أنا يوا حلبان أحمد مع الفقيه وحل حريرة وركب بعلمها هوي أن دجنين أنا وأن دجنا يحلبان كله يدت كلا الصوماليات أي دجناين لو سوق هذي kooxo arxanlaawayaal ay ku soo qaadeen jimcadii la soo dhaafay 9kii bisha 11aad 2018 weerarkaas oo kooxo tiradeeda lagu qiyaasay 10 qofood oo ku hubaysnaa hubka maaragtay small arms ka la yiraahdo iyo miinooyin watayna 3 gaari oo qaraxyo ay ku rakaban yihiin ay ku soo qaadeen hotelka saxafi la yiraahdo magaalada muqdisho dhaca ku yaala kaasoo dhaliyay khasaare xoogan oo isugu jira dhimasho ilaa 6 qof ilaa hadda sii socota ay dhaawac 120 ka badan oo ka soo gaaray burbur hantiyeed ay ku timid runtii taasiisi waxaan ka gudbinaynaa eheladii dadkaas ku dhaawacmay iyo kuwa ku dhintay iyo kuwa hantidoodu ku burburtayba waa watacsiyeynayna waana waajib shirkan jaraay marka uu la xiriiraa tacsidaas ka sokow waxaan sugaynay dawladda aan ka tirsannahay gaar ahaan xukuumaddeeda iyo executive-keeda iyo hay'adaheeda amniga muddo 7 inay ka soo saaraan wax wara arrintii weerarkii xooganaa oo mid la mid ah uusan ka dhicin magaalada muqdisho xagga khasaaraha waa laga yaabaa inuu ka yaraa laakiin weerar 3 geesood ah markii koowaad oo uu dhaco ayay ahayd magaaladan muqdisho ka dhaco cid kastoo ka dambaysaba weerarka noocaas xajmigaas leh dad ku dhow 50 oo xildhibaano iyo senatarro isugu jira iyo officers waaweyn oo dawladda goobtii ay deganaayeen oo goob ka muhiimsan aysan jirin in ilaa iyo hadda aysan dawladda iyo xukuumaddu aysan war ka soo saarin arrintaas runtii ayaan darro weyn weeye kooxahaasina waxay ku soo talagaleen inay nagu laayaan meeshaas aan qofna aysan ka harin yacni meelo ka ahamiyad yar ayay madaxdeenu maalin kasta booqdaan ilamaaya hadda meeshaas ma aysan soo booqan marka arrintaas markay dhici weyday ayaan baaritaan iskeena samaynay gaar ahaan anigu mid gaara ayaan ku sameeyey arrintaas runtii waxa ayaan darro ah inaan dee ilaa hadda xitaa tacsi rasmiya dadkii dhaawac ahaana inaan la booqan dadkii dhintayna inaan si fiican ugu tacsiyeyn oo la imaan goobtii wax ka dhaceen intaas ka sokow waxaan rabaa waxyaalo shaki dhaliyey inaan halkan ka muujiyo oo kooxihii weerarka la xiriiray marka koowaad ciidamadaas na soo weeraray dadkaas na soo weeraray maleeshiyaadkaas yacni arxanlaawayaasha waxay wateen dharkii ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed ee ugu dambeeyay ee la qaybiyay waxaan runtii baaritaanka ku soo ogaanay oo naloo sheegay in qoryihii ay ku hubaysnaayeen ay ka mid ahaayeen qoryihii dawladdu ayaamihii u dambeysay soo gaaray gaar ahaan kuwii Jabuuti ka soo gaarayna la kugu sheegay waxaa runtii shakina geliyey labadaas ka sokow yacni dharkii iyo qoryihii waxaa shakina geliyey baaritaan inaan wax baaritaana iyo wax dareena aysan ku dhalin dawladdeena aysan ku dhalin iyo madaxdeena arrintaasi waxaa dareenna geliyey in ciidamadii ilaalada ahaa ee la diriray nimankaas ee laayay ee hotelka ilaaladii hotelka in markii ay operationkii dhammaaday kadib in hubkii qaar ka mid hubkoodii in la qaaday oo ciidamada amnigu ay qaadeen dee ciidankii meeshaas difaacay oo la sheegtay weliba wixii ay sameeyeen iyo dadkii ay difaaceen waxaa sheegtay oo la yidhi ciidamada amniga soo afjaray waxay soo afjareenna ma jirin ciidamo amni dadka wax soo afjaray waxay ahaayeen ilaalada hotelka oo laayay nimankii arxanlaawayaasha halkaas soo weeraray kadib markay soo weerareen hubkoodii laaya hadda qayb ka mid ah hubkoodii wuu maqan yahay oo xarumaha dawladda xarumo ka mid ah lagu haystaa sababtana ilaa iyo hadda lama garan runtii marka arrintaas dareen xoogan bay nagu dhalisay
ma dhicin in cidna lagula xisaabtamo weerarkaasi yaa ka dambeeyey in cidna loo xisaabiyo ma dhicin in baaritaankiisa cid gaara loo xilsaaro ma dhicin dowladdu waxay sheegatay abaalkii iyo shaqadii ay qabteen ciidamada ammaanku oo ay sheegteen inay iyagu soo afjareen waxaa shakigaas xooggan uu ku jiraa sidee dharka ciidanka xoogga dalka si fudud loogu heli karaa gaar ahaan dharkii u dambeeyey oo weeraradii u dambeeyo magaalada ka dhacaya qaybo ka mid a ay wateen sidee qoryihii laftoodii loo heli karaa marka arrimahaasoo dhammi shaki weyn ayay nagu muujiyeen waxaan marka shirkan jaraa'idu la xidhiidhaa inaan dhahno assassination la rabay in nala ku dilo ayuu ahaa oo shirqoolah oo dharkana iyo qoryihii iyo dharkii dowladda ay yihiin qofka dhexda ku jirana nala kugu sheegay inuu shabaab yahay marka weerar laba dhinaca ayaa nagu dhacay haddaan nahay dadkii halkaas deganaa oo xildhibaanada ahaa iyo dadkii kaleba iyo dadkii soomaaliyeed oo kaleba dharkii iyo hubkii waxaa la sheegay dharkii waaba iska muuqday waxaa kaloo naloo sheegay markaan weydiinay cidda gacanta ku haysa in hubkii gaar ahaan qoryihii meeshaas laga qabtay oo nimankaasi wateenna uu ahaa qoryihii maaragtay dowladda qayb ka mid a isla markaasna qofka dhexda ku jirana waxaa la sheegay inuu ahaa al-shabaab sidee ku dhici kartaa marka al-shabaab iyo dowladdii inay intay isdhex galaan inay operation noocaasa qalab iyo hub dowladi leedahay iyo qof la leeyahay waa al-shabaab sidee ku dhici karta arrinta shakiga weyn meeshaas naga muujisay waxay ahayd arrintaas weeye arrinta keentay qayladhaanta iyo shirkan jaraa'idna waa middaas sidaas awgeed waxaan dalbanaynaa oo aniga aan soo jeedinayaa oo dalbanayaa in waana u gudbinay golaha shacabka in golaha shacabka uu saaro iyo golaha aqalka sareba loo saaro guddi madax bannaan oo arrintaas soo baara ugu yaraan yay ahaayeen nimankii meesha soo weeraray yay ahaayeen sababtee ku yimaadeen saddex gaari inta halkaa lagu kala dhigaya aawa sirdoonkii dalka aawa ciidamadii dalka amnigiisa hayay saddex baabuur inta meel la kala dhigo weerar intaasu maalin cadoo maaragtay qoraxdu soo jeedo inay dharkii inta soo gashadaan kabihii xataa kabaha ay wateen waxaa la yidhi waa kabaha la siiyo ciidamada tababarka ku jira oo tababaranaya ciidamadeena hadda tababarada ku jira kabahoodii wayaa la yidhi kabaha ay wateenoo ay meesha kusoo galeen marka in guddi baaritaan la sameeyo hubkan siduu ku baxay dharkan siduu ku baxay kabahan siday ku baxeen qalabkan dowladda nimanka argagixisada ah ay helayaan sidee ku baxay waa koow labo in dhaawacyadii looma gurman waxaan arkayay idaacadaha iyagoo ka dhahaya qaarkood waxaan booqannay oo dhaawacyadii baan booqannay ilaa iyo hadda dhaawacyo lugaha laga wada gooyey kuwa gacmaha laga gooyey oo ku dhaawacmay meesha shalay iyo daraadba markaan tagnay isbitaallada cid u timid ilaa iyo hadda ma jirto dadkoodii ayay dhibaato ku yihiin oo dadkoodii baa lacagihii la baxaya oo weliba ka bixila kharashaadka meeshaas isbitaalladu ay dalbanayaan wax gurmada oo loo fidiyey oo dowladda xaggeeda nala kaga fidiyeyna ma jiraan bay yidhaahdeen waxaa burburtay hanti xooggan baa ku burburtay meeshaas oo hoteelkaasi uu ka mid ahaa iyo hoteelada dariska la ah iyo businesskii iyo c i d da lafteedu way burburtay marka wax ma jirto ilaa iyo hadda dadkaas xitaa khasaare celin amaba tacsiyeyntaba looma tacsiyeyn waa markii labaad hoteelkaas la burbursho oo dadka ay lacag badan ay ku baxayso waxaan runtii ugu dambeyn yacni u jeednaa in xildhibaanadu ay taargad yihiin sidaas awgeed xildhibaanada waxaan ugu baaqayaa soo jeedinteyda ka mid a inay feejignaadaan inay maaragtay aysan wax badan ayagu amnigooda ay ka shaqaystaan iyo in la ogaado sababta keentay in sirdoonkii dalku uu noqdo waxaan shaqaynayn oo aan ka warhayn cidda weerar noocaasa maalin cadgeysanaysiy in kale in sababo waxyaalahaas oo dhammi in guddigaasi uu noqdo guddi labada aqal ma dhici karto in hay-adihii dayacay mas-uuliyaddooda la yidhaahdo qaarkood ha loo xil saaro iyagu inay soo baaraan fashalkii ayagu ay maaragtay ay ku guuldaradii iyaga ay ku guuldaraysteen inay amniga iyo ogaadaan argagixisada iyo cid kastoo qalqal amni geysanaysa xilliga ay waxaasoo kale geysanayso in iyagii haddana la yidhahdo waa loo xil saaray waxaan soo jeedinayaa in golaha shacabka iyo golaha aqalka sare guddiyo ad hoc committee intay u saaraan
inay arrintaasi soo baaraan. marka guud ahaan waxaan mar labaad runtii ammaan halkan uga soo jeedinayaa ilaaladii hoteelka Saxafi oo runtii naftooda ka hormariyay halkaasna ay uga shahiiday 4 qofood oo kamida naftooda ay ka hormariyeen inay ilaaliyaan dadkii maganta u ahaa oo ay meesha ku hayeen oo argagixisada ay ka difaacaan. runtii geesiyaal bilada in loo xiro mudan weeye. waxaan runtii oo kale aad aan uga xunnahay inaan la kala garanayn askariga ka soo horbaxaya oo dharka ciidanka wata wuxuu yahay inaan la kala garanayn. mar haddii niman yacni weerar noocaas oo kala geysanaya oo fal bahalnimo geysanaya, mar haddii dharkii iyo qalabkii iyo saanadii iyo wixii ciidankeena wato kale ayaguna ay u suurtagelaysa inay helaan inaan la kala garanayn meesha la iska jiro. marka taasi waxay keenaysaa in feejignaan tiro badan dadka shacabka iyo kulliba. in waxaan kaloo ku baaqaynaa in la soo celiyo oo la joogteeyo dagaalka argagixisada nimankaas lagu hayay arxanlaawayaasha. waxaana ku soo gabagabeynayaa waxaa mahadsan ilaahay naga badbaadshay shirqoolkaas rabay in ku khaarijiyo. waxaana runtii ku baaqaynaa in laga feejignaado, dadkuna ay ka feejignaadaan, hay-adaha amniguna ay shaqadoodii qabsadaan oo aysan dhicin in weeraro kaloo noocaas oo kale ay magaalada muqdisho ka dhacaan. madaxda dalkana waxaan u soo jeedinaynaa inay dalkooda u soo jeestaanoo riwaayadda kale oo ay wadaan iyo geeska Afrika la midaynayaa iyo dhaqaalaha la yeelayaa iyo riwaayaddaas inta naga daayaan inay u soo jeestaan dalkoodii. dhibaatada rasmiga ee ka jirta dadka businesskoodii burburayo, dadka dhimanaya waa dad Soomaaliyeed. hadday ka naxayaan maantay oo dad Soomaaliyeed ganacsiga iyo waxbaan barwaaqa la gaarayaada ay leeyihiin, dadkii inta ka horeysa intaan taas la gaarin ayaa la baabi'iyey oo la burburiyey. marka waxaan leenahay riwaayadaha aad jilaysaan inta iska daysaan problemka dalkiina ka jira oo rasmiga u soo jeesta. sidaas la mid ah ayaan hay-adaha amnigan waxaan ugu baaqaynaa inay kaalintooda gutaan. waa mahadsantiin.